madasha isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug ayaa magaalada Gaalkacyo waxay ku qabteen kulan wacyigelin ah kaasoo u socday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi. warkaasi waxa inoo hayay wariyaha Axmed Jaamacaan Cadeeye. tababarkan looga hadlayay wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee qarannimada, wadaniyada iyo walaaltinimada ayaa waxa soo qaban qaabisay madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug, waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro, aqoon-yahano, qurbo-joog iyo maamulka degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ah gudoomiyaha golaha sare ee madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug oo faahfaahin ka bixiyay tababarkani iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay ayaa xusay in qabashada barnaamijkani uu muhiim u yahay ummadda Soomaaliyeed. kulanka wuxuu noo socon doonaa muddo 2 maalmood ah. dabcan waxaanu ka hadli doonaa ama kulan ku saabsan yahay in la isku wacyigeliyo haddii Ilaahay ku idmaayo wadaniyada iyo wada noolaanshaha iyo haddii Ilaahay ku idmaayo iyo walaaltinimada waxay tahay. sidoo kale Maxamed Dhabancad iyo Sahre Xuseen oo kamid ah aqoon-yahanada iyo qurbo-joogta gacanta ka geystay barnaamijkani kana qayb galay ayaa dhalinyarada uga waramay awoodda ay Soomaaliya lahaan jirtay waqtigii barisamaadkii iyo sida uu dalku u burburay. dhalinyarada marka waxaan ka codsanayaa inay iska kaaya cafiyaan, khalad baan idinka galnay, waa run wadankii intaan nolol fiican soo marin runtii, waxbarasho ha ahaato, caafimaad ha ahaato, nabadgelyo ha ahaato, markaan ku soo faa'iidnay ayaan idinkii meel xun idinkaga tagnay. marka raallina ahaada nacafiyana waayeelka anigoo kale waxaan ka dalbanaya oo nool oo maanta jooga dhalinyaradii way fahmeen inay mustaqbal u baahan yihiin, waxay fahmeen inay nolol u baahan yihiin. dhalinyarada aynu wadankoodii ku tumanay Ilaahay baa idinku dhaarinayaaye waxaynu ku garab istaagno inay wadankooda dib u soo dhistaan. waxaad la socotaan ciidankeenii Soomaaliya micnihii uu lahaa isaguna iyo xoogii uu lahaa Afrika oo dhan, libaaxyada Afrika in la dhihi jiray. waxaynu wada ognahay oo mar badan lagu celiyaa in SYL xorriyadda markii loo dagaalamayay SYL ay ahaayeen dad kooban, dad dhalinyaro ah. aqoonta maanta aynu leenahay inaysan lahayn, aaladda maanta aynu haysano oo Soomaaliya oo dhan meel kastoo la joogo Facebook ama social media kale la isugu keeni karo inaysan haysan, baabuur ay ku safraan inaysan haysan, telefoonada waxaas iska badaayeen. sidaas oo ay tahay Soomaaliya haddana inay mideeyeen inay gumaysiga iska dulqaadaan, dariiqo kasta ha u mareen, ama qabaa'ilka la diraan, ama qabyaalada la diraan ha u mareen, ama maaragtay barnaamijyo kale ha u mareen. ugu dambeyntii waxaa tababarka si rasmi ah ugu furay ku dhawaad 50 dhalinyaro ah ee maanta tababarka loo furay gudoomiyaasha degmada Gaalkacyo, maamulada Puntland iyo Galmudug Xirsi Yuusuf Barre iyo Maxamuud Yaasiin Tumey, kuwaasi oo tilmaamay in dhalinyarada loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka. waxaan rabaa mowduuca meesha ku qoran oo wadaniyada iyo walaalnimada waa mowduuc muhiim ah weey. Soomaaliya dagaal bay soo martay, way kala qaybsantay, dib u heshiisiin dhab ahna lama gelin wali. dalkoo dhan baa u baahan. Gaalkacyana waa meelaha ugu halista badan leh oo colaadaha ugu badan ay ka jiraan oo soo laalaabtay. runtii waxaan isleeyahay in laga hadla ama la bilaabo way fiican tahay wadaniyada oo waliba dhalinyarada loo sheego, laakiin kuma filna maalin iyo labo dhalinyaro in looga sheekeeyo wadaniyad. anu waxaan ku talin lahaa oo waliba anu waxaan oran lahaa qodobadeena maanta aan ka hadlayno qodobka ugu muhiimsan aan ku darsano waxbarashada dhalinyarada maada kamida wadaniyada in lagu soo daro. Axmed Jaamac Cilmi Axmed Caano, wararka warbaahinta SBC Gaalkacyo.